dhinaca cuntada ay kala kulmayaan Soomaaliya marka badankoodna waxay u badan yihiin dumar iyo caruur marka meeshan waxa ka socoto howl samafal ah oo lagu caawinayo dadka masaakiinta ah cunto iyo waxa loo dhoofinayaa daawooyin iyo qalab oo lagu nadiifiyo biyaha sababtoo dad badan baa waxay u dhimanayaan biyo wasakh ah bay cabayaan marka qalab oo biyaha nadiifiyo oo biyihii ka dhigo biyo cudur la'aan ah baa loo dirayaa oo inta Canada lagu sameeyay marka hawshaasaan ka shaqeynay oo isku dabarideynay qalabkaas marka aad iyo aad marka aad hawl fiican baa ka soo ma sha Allah waxa hal su'aalan ku weydiinaya oo ah adiga inaad qayb weyn ka qaadatid dhinaca developmentiga especially world developmentiga especially African developmentiga wax yar naga sii fadlan dawladda Canada waxay qarash ku bixisay 119 milyan oo dollar inay siiso afarta wadan oo arintan ay saameysay oo Soomaaliya, South Sudan, Yemen iyo Nigeria maalin dhaweydna waxay ku dareen taas qofkii $1 bixiyo inay $1 dawladda Canada ay ku dareyso qofkii macnaha lacag bixiyo marka 119 ka gooni u bixisay hadda ka bacdina ilaa bishan dhamaadkeeda qofkii abaartan iyo waxa hadda la aruurinayo lacag ku bixiyo dawladda Canada lacag bay ku bixinaysaa aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa aad iyo aad baan u mahadsantahay wasiir qaybta weyn ka qaadanayso ummadda Soomaaliyeed Canada iyo adduunkaba aad baan kugu mahadnaqaynaa waadna mahadsantahay horumarka TV thank you very much assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal soo dhawaada ku soo dhawaada horumarka TV maanta aan joogno 116 industrial oo ah loo qaybin loo package loo sameynayo relief ah Soomaaliya lagu celinayo halkan waxa ila joogto Evian Faarax Evian oo ah أحمد وزير كنا أحمد حسين's wife Evian سودو ما أنت أرنتان مشان قرح البدران ما أنت الإيماني أرمها كتيرو سيدي دريميسا وحيرنا نقصي فلان وكفر أحسنها هنا مشان إماذا رنتي حدانا هاي Somali community أو كندا جوجو إيمان والبقى جوجنو دبك أنا كان usually أو حالنا أنا كان سنة كي the Canadian Somali not just Canadian Somali community but Somali or Somali كصب أحسن واحد دران $1.4 billion a year in a support جريان ودن كذا دتك جوجو واحد ديساين إسبتالو واحد ديساين سكولو دتك قاعد جالسين دتك أو دبعته حسنا وعاومان لكن mainstream community ما كور خبطه so ماشانو كله وحوي very important إن إيمانه أو support جريانه أو خيب قلنا dhibaatooyinkaas ummadda kale oo nala qaybsan karo waliba dadka waa dad fiican waxay rabaan inay nacaawimaan is just ma loo jeedo waxa dadaal aan sameynayno way qarsoon tahay so inaan meelahan kale ka soo qayb galno oo u sheegno anaka waxa wadankeen u qabanoono si aan anaka oo ekaanin dad oo waxba u qabanaynin dadkooda wadanka ما شاء الله thank you وما هسنتهاي Evian كورن إن package كواحد almost هل صنو قوس لن باهي تركرتها I mean that's هدي أساس لسمين كرو ما شاء الله هذه أدب وحلو فرحة هاي مركا قيبتان إن قيب سيس عنيسا سو أركتها وحن أي مانتي ما شاء الله أحمد يو برنامج كان يو هذيك أكقيب كليسين وحسيس عنيا من خنيسا سيس عشرة وحي كحرنتها هاي سأنا كأكتف ونقنو أنا أمد كله نبكوا حتى أنا على قيب سنة حداد ودن كذا حدو earthquake or anything أنا كنا سوقرب استاجنو أنا كنا نوقرب استاجان وحاسق وسيس عن كرتاو وحي كحرنتها أكتف نمذينا ما شاء الله أدي أدبن مهد علينا يا ونس أركنا وذا الشقين ونكسن هراء داوديال إن Evian فارح ومهسنتهين وحنا قد داونيسان هرمركة TV وحنا ذلنا هاي داوديال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nice picture, eh? Nice camera. Thank you. It was great. Thank you. No, they go into these boxes.
So what we do is we give it 2 shots like that. Yeah, you're fine like that. You can just stick it on. It'll pull Make it face it this way. Yeah, make it face it this way so we all can get a great picture. our volunteers that will implement it. He's a bit of a crazy genius, and what I can do is if the motor comes off and everything's happening with me, is I can take it. Yeah, exactly. So I'll take it to the different places, but anything more than no problem. This is Kenny's retired firefighter that volunteer with us. They most recently in Haiti. You want to give a shot, Joel and Bucky? All right. So if you want to switch around over here. Try and line it up. Hit center, push down. Good. You push down evenly on the edges and then we'll see it pop through. There. Yeah. And then it'll just push down and just pull it up. There you go. All right, and we'll get a lid for you. Oh, sure. Yeah. One of the reasons that we use volunteers to do this to drive the cost point down so that we can provide more families with aid, right? Can you imagine if we had This is very important. These tickets are showing they're made in Ontario. So what we could be doing, especially on your platform where you talk about innovation, what we really could be doing, we could be using innovative life-saving ideas that are made right here. Our province, our country, and we put it out. Okay. Yeah, that's center. Good. Just gotta watch it. Here. You want to take a shot at one? Sure. You want to do something? Come and do it. All right. But the idea is, we have all these crises around the world, right? $25 billion industry annually. We have all these good ideas that are made right here in Canada, right here in Ontario. And what we should be doing is, we should be putting these supplies in on day one of a crisis, right? Canadian, Ontario, innovative, life-saving aid on day one. You know, we get like 5 years into a crisis, we don't want to be doing that, but on day one, we absolutely should. It's a pleasure to be here in the riding of York South-Weston. This is my constituency. I'm the Member of Parliament for York South-Weston. I'm also joined by the Member of Provincial Parliament, my colleague Laura Albanese, who's also here with me. We're both happy to take your questions. What you see here is Canadian generosity and the ability of citizens to step up. Canada and Canadians have always stepped up when other people around the world have run into difficulties, especially when it comes to famine, malnutrition, affecting women and children and men. And so this is an example of what's happening. As well, our government, the Government of Canada, has committed $119.25 million towards the 4 worst affected countries, which is South Sudan, Somalia, Yemen, and Nigeria. And on top of that, we've announced a famine relief fund in which the Government of Canada will match dollar for dollar any donations made by Canadians until the end of this month. I'm happy to take your questions.
It's really important. This bucket that you see, these packages that are being put together, the kits contain a number of things that are critical to people facing famine-like conditions. So you have a water filter in there, you have high nutrition supplements to help children recover from near-death experiences as a result of malnutrition. You also have some small hygienic products that are necessary for people. But the key thing is that this is a low-cost water purification system that is made right here in Ontario. And as you can see, they're keeping the costs down because volunteers are assembling it, and it costs much less to send it to those countries from here with the help of these volunteers. And I'm happy to join them here today. Why does it matter to you so much? It matters because, I mean, we're all in this planet together. We feel the pain of others when people are at the risk of death just because they can't get enough water to drink, just because they can't get enough food to eat. That touches us. And we have we're relatively a very affluent society. We're blessed to have, food to eat and water to drink and healthy environment. And so, when other people are dying just because they can't filter their water, they're facing dirty water, for example. These kinds of kits save lives. One kit will save a family of 7. And so, it's a small thing that we're doing here, but it has a massive impact on the other side of the world. It's really, really encouraging, and it shows that Canadians always step up when there's need abroad. I have to thank Global Medic. They came to see me in Ottawa, and I saw, firsthand the work that they were doing. They did a presentation for us in Ottawa. So Global Medic has demonstrated great leadership here, together with Islamic Development and Relief Foundation and Canadian Somali Congress. They've come together today to really bring all these people together, and you can see the great work that's being done here. When would the relief be sent out? Immediately, as soon as they're assembled, they send them out. What more can Canadians do to help beyond? I think any donation would be most welcome. Any small or large donation will be matched dollar for dollar by the Government of Canada. So I would encourage Canadians to take advantage of the Famine Relief Fund and donate generously. Every small donation could potentially save lives. Okay? I don't know if you want to add anything. We're really making a difference today here with these kits provided by Global Medic with just a few but essential items that can save the lives of a family of 7 each kit. Think of the children, think of the mothers and the people that on the other side of the world are facing famine. We are so fortunate in Canada to live in a country that is very inclusive, and I think this is an initiative that needs to be commended, and we should all do our part. Thank you. Thank you. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال سو دواada ku soo dhawaada horumarka TV anigoo ah Deeqa Nuur. Halkan waxa ila joogto maamo Amina Cabdulaahi. Amina soo dhawow. Wax yar naga sii maantay Somali Relief-ka oo packaging-ka ee meesha lagu sameeyay sidee u aragtaa? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن السلامي هرمرك تيفيجا مركب حوي وحفي عن بمانت لقبتي أرنتان وأرن عضو في عن إنك الصومالي ذو هدا إسكت شته وحول بوي سمي سنكران تاسان وجادي ضد بدن أجنبي هالكان للشوق وآد وددالية ضد بدن باي هدينا يمادان وحكش شقيان لكن الحمد لله شقد سيد الربيبي وصعتها يجنا خير الله كسيو وحق لته الصومالي وها وجادين قفك maalin xataa ilmihiisa afur yar hadduu u kariyo oo uu wax sadaqaysto dadkeena Soomaali abaaraxun baa ku dhacay dhibaato badan bay mareen waxa way waa inuu qof walba annaga Soomaali waa inaan isku tashano hooyo walba gurigeeda maalin waa inay afurka xataa ilmaheeda ka yareyso si ay ugu dadaasho Soomaaliya oo loogu diro dadka abaaraxun baa wadankeena qabsatay oo dadkii dhibaato ku dhacday marka saasan rabaa inaan maxayta Allah gala soo qayb galo oo Soomaalida ay dadaalaan iyagu isku tashadaan. maantay arintan meeshan ka dhacday oo kale oo lagu support gareynayay reliefka Soomaaliya sida oo aragtaa inay Soomaalida ay runtii saan oo kala badiyaan fikradaas fadlan waa inay badiyaan laana arinta hadii si fiican loo sii shaqeeyo
oo qof walbana ajar buu helayaa maanta annaga waa soomannahay waa bil rabadaana soonka aan soomannahay waxaan u soomannahay inaannu ajar helno qofka gurigiis intuu masaaka ka soo kaca aroortii 10kii bay bilaabatay shaqadan shaqeeya xataa ajar buu ku leeyahay oo ajarku wax aad iska helaysa ma adoo jiifa marka waxa way arrintan si fiican oo fiican bay u dhacday waa in la sii wado waa inay sii socoto ما شاء الله aad iyo aad baad u mahadsan tahay Aamina Cabdullaahi daawadayaal waxaad naga daawanaysaan horumarka TV fadlan nala jooga meesha markaan soo xirnaa waa idin sheegaynaa waxaad naga daawanaysaan horumarka TV anigoo ah Deeqa Nuur waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal soo dhawaada horumarka TV maanta waxaan joognaa meesha relief ka loogu sameynayo East Africa especially Soomaaliya waxa ila joogo Sheekh Cabdirashiid Maxamed soo dhawow wax yar naga sii arimaha maanta meeshan ka dhacay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله waa soo dhawahay aad baan ugu faraxsanahay muqaabaladan runtii maanta waxa meeshan ka dhacay khayr oo runtii walaalaheena IDRF oo Islamic Development Relief ayaa waxay noogu yeereen arin khayr ah runtii sida Ilaahay yiri watacaawanu cala albirri wattaqwa in la isku kaashado wixii birri iyo khayr ah oo ay u qumeen oo ah in ay sameynayaan mataqaana ay dirayaan relief Soomaaliya water filtering oo ogtihiin biyaha dadka sida ugu dhamaadaan hadaysan nadiif ahayn oo haddaba riboodyada iyo akhbaarta wadanka naga soo gaarayso dad badan ay daacuun u dhamaadeen Ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkaas inuu ka qaado xanuunka farajna u furo marka runtii arinka aan isugu nimid oo ah tacaawunkaas iyo loo gurmado ummadeeni oo aad ogtihiin gaajadii iyo mataqaana ku habsatay inkastoo hadda roob ay da'een ayaa walaalaheen waxay noogu yeereen inaan water filteringkaas mataqaana aan isugu imaano community oo dhan marka fursad qaali ah bay ahayd runtii wasiirka mataqaana immigrationkana Axmed Xuseen runtii wuu nagala soo qayb galay marka looma kala haray anigu wiilkayga Yusuf baan soo watay waa kan was a really great experience for him how was it daddy It was good, mashallah. It was nice that they're helping like Somalia with like hygiene and stuff like that, mashallah. ما شاء الله waa u jeedaan aabihii wiilkaaga waalid badan waa u jeeda oo caruurtooda keeneen aadna wax loogu farxay tahay maadaama ay caruurta aan rabno inay ogaadaan siday u caawin lahayn dadkeedu waxaan rabaa kaliya inaad ku dirto inaad ummadda Soomaaliyeed in programkan la sii badiyo sidee u aragtaa ما شاء الله runtii waa su'aal fiican runtii qofka bini'aadanka waxa loo baahan yahay intuu nool yahay inuu wax tar noqdo ummadda Soomaaliyeed saad la socotaan diaspora aad bay ugu gurmadeen wadankeena dhibaatooyin badan baa ka jiro runtii waxaan ku boorin lahaa qof kasta kula dadaarin lahaa in mar walba ay wadan ku xirnaadaan ay ka warqabaan sababtoo ah waxa weeye ummadaasi sida Soomaalidu tiraahdo cidina uma maqna ceelna uma qadno haddaanan annagu aanan u gurman oo aanan u fidin gacan hiiliyahoo ah waxa weeye dhibka kama baxayaan dadkii creamkii iyo dadkii waxaystay iyo dadkii aqoonta lahaa wadanka way ka soo baxeen maanta dibaddaan joognaa dibaddaan ku tarannay dibaddaan investment ku samaynay marka ma soconayso inaan dhahno annagu dad mataqaanaa we are on our own and they are on their own waxa weeye waa ummadeeni waa jasad waaxida weeye ma kala go'no waa meeshaan abi isar ka soo jeedno waa inaan mar walba aan ku xirnaanaa oon taageerayna u fin caruurteennana aan barnaa inay dhul leeyihiin inay dadkooda u baahan yihiin inay xataa markay hadhow wax bartaan ay mataqaanaa ay investigareeyaan oo shaqo iyo mataqaanaa ay geeyaan investment waa muhiim oo lagu xirnaada mar walba marka walaal waan boorin lahaa arrinkaas wadankayga waan jeclahay runtii mar walbana am always Somali wherever I go ما شاء الله aad iyo aad baa u mahadsantahay Sheekh Cabdirashiid Maxamed iyo wiilkaaga yar ma sha Allah Ilaahay ku daayo jiro joog macaan ma sha Allah marna habar yar kale caruurta Soomaaliya habar eedo waa u nahay marka daawadayaal waad u jeedaan wanaaga quruxda badan ee meesha ka socdo Sheekh Cabdirashiid aan hadda wareysanay wasiirka Axmed oo hadda meeshan joogay ka tagay Axmed Xuseen iyo dad kale oo waliba aan hore u wareysanay haddana hore dibna u wareysanayno waxaan idin leenahay fadlan
nala jooga nala daawada waxaa naga daawanaysaan waa Horumarka TV anigoo ah Deeqa Nuur daawadayaal waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Welcome to our viewers of Horumarka TV. We're here today to do packaging for fundraising for the drought in Somalia, and today we have here Farheen Khan, the director of the fund and development portion of it from IDRF. Farheen, welcome to Horumarka TV. Thank you so much for having me. Awesome. So how did you start this initiative and what motivated you to do this? So IDRF, we heard about the East African famine. We knew that it was a drought initially, and we started to raise some funds for that. And then it grew into a famine, as we saw. We started to realize that there were so many people that were in need. And one of the things is that many people out there have access to. There's many groups that are doing food aid, and we are doing some as well. But also important, just as important, is access to clean water, particularly when there's so many waterborne diseases now as well. So we decided to partner with this organization called Global Medic. And we raised the funds, and with the support of many people, we're able to purchase a number of these water filtration kits. Each kit is basically $100, and it supports one family of 7 for a full year to have clean water. We also include things like hygiene products and some of the supplements for children, so that these aren't just the people who are going to the feeding centers, but this is more for the people who are outside of the feeding centers to prevent them from getting to the point where they have to access that they're actually becoming they're getting to starvation. That's amazing. So we know water is very important. Water is life. Like you said, food is not only the priority. So the waterborne illnesses, is there somebody on the ground to just educate people on how to get water and prevent waterborne illnesses? Well, the thing is, it's hard when there's so much of the water, like the flooding and thing that's happening, the rain water, so it's difficult. But these water kits actually support that. So very simple. No electricity required. It looks like 2 buckets. They've got the filters in the middle. People just throw the water in, and out comes the clean water, right? So very simple for people to use, and that's a great way for families to then have access to clean water. That's amazing. I mean, how would you tell the people that are watching us, how can they get involved? How can they volunteer? We've been here since 12 o'clock today, and I've seen the process from beginning to end. It was such a beautiful lineup. Children, people of all ages came and volunteered. How can we get more people involved also in the next events are going on within Canada? For sure. So we have events happening in Calgary and in Ottawa as well in the next couple of days, especially in Ramadan. This is very important for us. This is all part of what we call the Be Remarkable campaign for IDRF. For us, being remarkable means supporting people and being able to make your mark. Ramadan is about giving and charitable giving. This is your opportunity to give. So there's lots of ways to give. You can give of your time, you can give of your money. You can go to idrf.com. There's a list of all the upcoming events that are happening in the next 2 weeks. We actually also have made a commitment to give 1 million meals into Somalia before the end of Ramadan. So even for that, $10 will provide a person, meals, 3 meals a day for an entire month. If you can imagine that, that's huge for a lot of people. So you can just go to idrf.com, come out to our events, donate online. This is the way that you can be remarkable. That's amazing. Jazakumullah khair. We know the importance of Ramadan and Sadaqah and continuing Sadaqah. The thing I wanted to know is how soon are the equipment that are being shipped today gonna reach the people of Somalia? They're sent out every day. So every time today we finish the kits, tomorrow they'll be on the planes on the way there. That's amazing. Thank you so much, Sister Farheen Khan. I really appreciate your time. Jazakumullah. Oh, Jazakallah khair for the opportunity. Thank you so much. So today maanta waxaa aragnay dad badan oo ajnabi ah oo ka danqaday abaaraha saameeyay Soomaaliya oo waxyaalo badan u sameeyay biyaha waxay wax muhiim ah alaabtii la xirxiriyay maanta sida u aragteen waxay alaab sanitization qoyska 7 people oo family-ga wax taraysa biyaha inay nadiif yihiin waa aad muhiim ah biyo wax lagu karsan lahaa biyo wax lagu dhaqi lahaa biyo la cabi lahaa marka insha Allah IDRF aada website-kooda sida donation u sameeynaysan sida volunteer u qabanaysaan and insha Allah bisha 20ka June wixii aadayaan Ottawa dadka Ottawa naga firsanayo jiro insha Allah try to volunteer lakin process-ka taas is different because the Canadian government is involved and the Prime Minister Justin Trudeau will be there marka waxaa jira selection process ahead of time aada website-kooda IDRF insha Allah aada mahadsantiin daawadayaasha Horumarka TV.
Assalamu alaikum. Welcome Horumarka TV daawadayaasheena. Maanta waxaan la joogaa Liban Ali. He is one of the coordinators and the facilitator that has managed to put this event together in Toronto. Liban, welcome to Horumarka TV. Thank you for having me. So we want to know, how did you get involved? How long it took you to actually start this initiative? We kind of got involved at the spark of the drought in Somalia. So it's been going on for quite some time. It's been over 2 consecutive years with no rain, or at least consistent rain. And so we kind of got involved in October is when we started thinking of what we're going to do. So we planned a response in April. We raised some funds to give food and water to Somalia. We gave it to Bilf Bedo, and we gave it to Garas Bale in Benadir. So once we did that, we further thought that, okay, well, if you're going to give people food and water, you also should provide them with the basics of hygiene, such as soap, toothbrushes, toothpaste, and that's what we also did. And that's what we're currently doing today. So we've been planning this, and it's been going on for quite some time. This is our second event. We're going to be having events in Ottawa. We're going to be having events in Calgary, and it's around this. We're going to be packing, and it's going to be going on for some time. At the end of July, we will be sending this out to Somalia, and we're going to distribute it on the ground. So if anybody wants to follow us, you can see that at www.idrf.com, or you can follow us at IDRF on Twitter, and you'll be able to see things land on the ground and being distributed, and just the entire process of it. So you'll all the different events, which is good. Awesome, that's amazing. And also we're in the month of Ramadan, and we know the importance of giving sadaqah and all that. Are the stuff that are being collected today, the water sanitation equipment, how soon can they get to the ground? So they'll be on the ground by the end of Ramadan. We're hoping to send it out by the 25th or 26th of June. So by the end of Ramadan, just around the Eid time is hopefully when we can send it out. It'll take a few days to get there. So right after Eid or around that time, people at least are able to have water to begin their days, and you can filter, which is really going to be good. It's just nice. That's amazing. So Liban, what would you tell the people that are watching us if they want to get involved? Of course, obviously there's a website, but there's people in Ottawa that would like to get involved by June 20th on how they can volunteer, what they can do. So what people can do is easily get in contact with idrf.com. You can send us emails directly to our website. You can try to reach out to us. We have our phone numbers everywhere. We also are having our event on the 17th in Calgary, and that's going to be at the Akram Juma Center, and it's going to be a packing event just like this. So tons of people, we're really hoping to get out for that in Calgary. In Ottawa, we're going to be doing it on the Parliament Hill, so we would love to have people come out to that event too. So we're really just trying to spread the word that way. So you can get in contact with us and stay up to date with us on our website. You'll see our Eventbrite pages, and you can see my contact information, someone else's on our team, and be that way. Thank you so much. Thank you so much, Liban. Also, we see how people can connect to call this number, email IDRF, and join the volunteer team. I wanted to know, my last question for you is, how is the Canadian government involved on the federal level or the provincial level? Are they helping the famine issue that's facing Somalia right now? Yeah, so as of late, we've been seeing a lot of calls for proposals and a lot of funds that the Canadian government has allocated to the 7 countries that are in need and that are going through the severe drought. So yes, so Somalia has definitely been on their radar, and that's been something they've been targeting, and that's what we're really proud of. And we're glad that there's been a Canadian government engagement, and we're hoping to continue working with the government and hopefully get involved with them to potentially continue to support this initiative further. It was amazing to meet you today. Thank you so much for the amazing work. Jazakumullah khair, and may Allah, increase the blessings of everything. Thank you so much, Liban. Horumarka TV dadka naga daawadayo naga fiirsanaya hadda oo Soomaalida ah waliba khaasatan dadka Canada joogo volunteer dadku u baahan yihiin ajnabi badan maanta aragnay oo jinsiyaadka waxa aragnay dad badan oo daa'iyo kala duwan ilaa ay caruur yar 4 jir aan la joogay maanta oo volunteer sameeyay marka hadda volunteer IDRF gala website-kooda sida kale taan laga soo xiriiri kartaan qofkii rabo inuu sadaqaysto. This is a very reputable organization oo la yaqaano lacagta insha Allah directly dadka masaakiinta u tagaysa website-kooda gali kartaan. Donations, there's $10 donations qofka oo 3 meals ku helaya maalinkii as small as $10 ilaa ay inta rabtid. Jazakumullah khair. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا هورماركا تي في أنا ديقة نور هذا وحن سوق بقبيني برنامجكي ما شاء الله وقبتي الصومالي ريليف ما شاء الله هذا وحن أودي بيا شكري.
odayaasheena qaaliga ah horumarka TV kusoo dhawaada barnaamijkan waa barnaamij aad muhiim u ah abaaraha iyo musawirada markasta waa aragnaa in Soomaaliya saameysay waa wax laga danqado oo laga xanuunsado marka see wax u qabanaa IDRF ay noo qabatay dad ajnabi ah maanta oo naga wada badnaa maanta meesha joogay wallahi emotionally it touched me aniga because waa wax oo wadankan u baahan yahay dadka masaakiinta nagu dhamanay marka get involved inshallah website ka gala IDRF waa nala soo xiriir horumarka TV iyo Arawi u socdaan iyo Calgary inshallah marka dadka reer Arawa iyo reer Calgary inshallah gala website ka and sign up for the volunteer list daawadayaal waataad interviewgeennana waa ka arkaysaan maanta meeshaan waxaa yimid axmed wasiirkeena axmed xuseen oo runtii meeshaan qayb ka qaatay iyo dad kale badan iyo Soomaali badan iyo dad kale ajnabi ah fadlan ka qayb qaata sida shukri u tiri ka qayb qaata relief yaasha badan ee adduunka caalamka meel kasta siiba Canada siiba Toronto oo lagu caawinayo ummadda Soomaaliyeed ay ku dhibtaysan Soomaaliya iyo abaaraha ka dhacayo abaartan waa abaar weyn bay ahayd oo Soomaaliya oo taabatay ka qayb qaata la jooga IDRF فضلا ومهدسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته